وإذن سلام يا إخواني وأخواتي walaalaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan isla fiirino wax yar waxa la yiraahdo munaafiq iyo munaafiqnimo iyo munaafiq muxuu yahay maxaa lagu gartaa afafka qalaad iyo afka nagaba iyo wax diimuhu ka qabaan iyo wax yar ugu dambaysa diinteena islaamka waxay ka qabto iyo meesha ku dambay doono aakhiro. horta annaga afkanaga munaafiq ayaan idhaahnaa ilaa hadda sida ugu badan oo isticmaalno waa munaafiq. laakiin erayga munaafiq wuxuu ka yimid waa af carabi. inta badana wadamada islaamka iyo dadka islaamka waxay isticmaalaan munaafiq maadaama uu caan ku yahay oo diintanadu ay aada uga hadashay oo aada iyo aada diinta uga hadashay oo gadaalka sheegi doono. af Soomaali ahaan anigu waa laga yaabaa eray saxa inuu jiro oo diintanada islaamka xataa markaysa la soo gaarin inaan munaafiq aan lahayn uu jiray way dhici kartaa, laakiin inaan erayada iska dhumin waa macquul. laakiin anu waxaan kolley soo helay labadan eray midkood labadaba waa loo isticmaali karaa. laba wajiile waa la dhihi karaa, jirjiroolena waa la dhihi karaa. haddii aada haysaan erey kale oo afkaas loo isticmaali karo munaafiq oo af Soomaaliya sax ah oo afaf kale ahayn waa soo sheegi kartaan hoos waan nagu qori kartaan si aan maaragtay u kala faa'iidaysano. munaafiq markii loo leexdo afafkan qalaad munaafiq waxay dhahaan sida Greek oo kale waxay dhahaan Hippocrates ay dhahaan. Hippocrates waa af Greek oo the Greek hore oo afafkan macnaha afafkii hore ka mid ah oo diinta kiristaanka daba ay ku akhristaan. Hippocrates aliraa ingiriiskuna ayadu kasii qaatay oo maadaama Latin ay tahay Hippocrates ayay dhahaan. afka Swedishka waddankan aan deganahay waxaa lagu yiraahdaa Heclare la yiraahdaa Heclare ama markuu Heclari munaafiqnimo Heclarande qofku markuu munaafiq yahay munaafiq sameynayo taas oo u dhiganta oo lagu sii fasiri karo waxay dhahaan Scott Spellare qof oo riwaayad jilay qof wax jilayo macnaha waxbaad jilaysaa wax aadan hayn baad jilaysaa oo iska dhigaysaa. waa jilay wixii maahane ma aha kan gadaal ayaan ka sheegi doonaa munaafiq muxuu yahay macnaha muxuu yahay diin ahaan diinteeda. marka munaafiq muxuu yahay munaafiq sidiisaba sida xataa oo sida macnaha dadka ummadaha ilaahay uu abuurtay munaafiq ay u yaqaanaan qof beelow waa sax diintanaduna waa qabtaa gadaalaa ka sheegi doona. munaafiq waa beelow waxa waaye marka qof oo wax leey waxbuu sheegayaa waxbuu dadka u sheegayaa dadkii wuxuu sheegayaa wax buu sheegayaa waxaas ha la sameeyo ama way fiican yihiin ama saas ha la sameeyaa ama saan ha la sameeyo. dadka ayuu wax fiican u sheegayaa waxbuu dadka farayaa dadkiibuu waaninayaa dadkiibuu la talinayaa dadkii ayuu maaragtay wacdinayaa laakiin waxaas oo dadku u sheegayo isagu ma sameynayo. waa wax Soomaalida ka jira dhexdeeda xataa
waxaan maqli jiray cilmigayga qaado ee camalkayga ha qaadan. cilmigayga qaado camalkayga ha qaadan. waa dhibaato. bas waxaad arkaysaa cilmiga iyo camalka inay kala nooc yihiin. qofkan wuxuu gudbinayo wuxuu dadka u sheegayo macnaha ma samaynayo. waa munaafiqnimo waayo. waana sida dadku ay u yaqaanaan. oo dadka xataa diimaha aan lahayn, dadka xataa wax aan aaminsanayn, siday u yaqaanaan waa saas. qofkii dadkii wax u sheegayaa, laakiin wuxuu sheegayo macnaha ma samaynayo isaga, mana ku dhaqmayo. oo sax ma ku dhaqmayo. waxa uu samaynayo isaga ma ku dhaqmayo. waxa uu dadka u sheegayo ma ku dhaqmayo. macnaha waxa uu ku hadlayo, waxa uu sheegayo iyo camalkiisa way iskhilaafsan yihiin. this is munaafiq. kaas waa munaafiq. hadda ka soo qaad masiixiyadoo kale diintooda, nabi ciise aada iyo aada uga digay munaafiqnimada. oo diintooda ay ku taallaa, oo aada iyo aada uga digay munaafiqnimada oo uga digi jiray, oo kitaabkooda way ku taallaan. waxay leeyihiin qofka munaafiq ah waa qof wuxuu iska dhigdhigaya. waa qof iska dhigdhigaya. oo meesha ay ka leeyihiin scottsbellary waa qof film jilay. waxbuu iska dhigayaa. wax ayuu iska dhigayaa. uu iska matalayaa inuu yahay ama uu samaynayo waxaas uusan ahayn. waxaas uu samaynayo uu iska dhigdhigayo wuxuu u samaynayaa si loo aqoonsado, oo loogu aqoonsado waxaas in qofka lagu ammaano. in lagu ammaano waxaas waa sax. diintii yuraa'uuna annaas, dadku istustusa. waa istustus. waa diinta kiristaanka qabta. waa istustus. waxa uu samaynayo dadku ha kugu ammaanaan, ha kugu aqoonsadaan, ha kugu gartaan, ha ku ammaanaan, ha lagaa sheegsheego, ha lagu sheegsheego wey. ha lagu sheegsheego wey. waa saas. sadaqou bixina, ha lagu sheegsheego. wuxuu iska dhigaa qof wanaag samaynaya. keliya wuxuu u samaynaya ilaah dartiis kama aha. wuxuu ka wadaa ha lagaa sheego weya. ama wuxuu rabaa inuu ku gaaro wax, inuu ku gaaro ayuu rabaa, oo uu ku gaaro wanaag, ama wax ku gaaro adduunyo ayuu ku gaaro. marka munaafiqa iyo diinteena islaamka markaan usoo noqono, munaafiq ayado badanaa kusoo degay, xadiis badanaa ka hadashay, suurado badanaa kusoo degay. munaafiq waxaa waaye waa gaal. in almunaafiqiina hum lkaafiruun, in almunaafiqiina hum lfaasiquun, in almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar. naarta waxay ka gelayaan meesha ugu hooseyda, ugu liidata naarta. 7 naarood midda ugu hooseyday gelaya. gaalada way ka cadaab kulol yihiin, ilaahayna wuu ka nacbiya. marka islaam ahaan waxa weeyaan qofka munaafiqa ahu wuxuu iska dhigayaa, kasoo qaad qof muslima, wuxuu iska dhigayaa qof wanaagsan, laakiin qalbiga waa ka gaal. wuu qarsanaya. yuraa'uuna annaas, in almunaafiqiina fi darki lasfal, in almunaafiqiina khushubun musannadatun yaxsabuuna kula sayxatin. waa dad dhagar qabayaala, waa dad shaki qaba, waa dad maaragtay maanta dhan waxay ka cabsanayaan an tunazala calayhim suuratun tunabi'uhum bima fii quluubihim. qalbigay ka jiran yihin waay. islaam ahaan iyo diin ahaan waa dad qalbiga dhibaata uga jirta waay. korka waxay ogyihiin muslim, korka bili-aadmiga way ogyihiin. hum lkaadibuun, waa beenlow. waxa uu sheegayo oo qofka munaafiq ah uu sheegayo waa been. hadal macaan uu sheega, labis fiican uu soo qaadana, wax wanaagsan uu sheega, waa beenlow. waxbuu ballan qaadaya, waa ka baxaya. wax ayuu ballan qaadaya, wuu ka baxaya. marka aayad aaday u dheer tahay munaafiqnimadu. insha allah waa isii wadi doonaa. ilaahay ha naga najeeyo. anakan waa tugno.
waa idin salaam.